xalfad si heersaraa loo soo agaasimay isla markaasina lagu caleemo saarayay jiif caaqil maxamed jiif caaqil cabdi aadan cayngal xalfadaasi oo lagu qabtay degmada gooda weyn ee ka tirsan gobolka saaxil waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay cuqaal salaadiin xildhibaano ganacsato iyo bulshada deegaankaasi waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay odayaasha deegaankaasi iyo cuqaashii kale ee ka soo qayb galay xalfadaasi waxaana caaqilka ilaahay uga baryeen inuu ilaahay xilkaasi u fududeeyo waxaana ka mid ah hadaladoodii maanta oo ay bisha sagaalaad tahay 3 maalintuna ay tahay isniin sanadku leeyahay 2018 goobtanaynu joognaana ay tahay magaalada Baraweyn ee degmada Go'ood ee gobolka Saaxil halkan aynu maanta iskugu nimi waxaynu caleemasaarkiisa u nimi jiif caaqil maxamed jiif caaqil cabdi jiif caaqil caaqilka waxaan leenahay waxa laga sugayaa bulshada aad hogaaminayso markaynu ku ducayno kadib cadaalad baa laga rabaa madax baa tahay waa ثقافتنا وحوية وردقن ومضى دقن كان كود ورثي وحلقات دونينا عدالة كاهران سي عدالة دي يدرقادنا تقول شقيسو يضع عنمو أيها لقاربا وحلقاربا وحكا السوونا كترين نتكل شقيسو وونا قينا بضا هي أمتا هي دادك ودن كتشوغبا إلا دول حلوحي ونكسنا إلا تاقر تتانا ونكوكو بوريني Soomaalidu waxay ku mahmaadaan oo mahmaa ilaa Carabi ilaa Ingiriis meel walba isaga taalo ama xigmadu ay tahay nuur maqli jibo inkastoo ninkaasi ragu geedaday yahay haddaan garabka lala qaban gurigoodi maad diinu soo xulnay haddayna la shaqaynin waxa kama jira barakallahu waqtigan imika joogana waa waqti khatar ah أنا ما تقول على مسار إنه مركز اللي إذا هذا هير هذا عينقل وشيف وعاقل في شرادوي مركز هذا اللي جاي ماتو إذا هي هم حريص لنا بالجليو حول السيو وهكل جاي إن الكيسي ومحمد هذا وهكل جاي إن الكيسي وأحمد هذا وهكل جاي إن الكيسي وعبد آدم انت وقبضا صندقا عادل لماذا وها هيي ومدودة وقبضا ترى هيي احمد على العين قال إذا كان كلمة بارولية ليس كان كلمة بارولية إذا كلمة بارولية والله رضا نبي الدولار وأقول لك شيئا وايد دونتا والله محلين الدولار دول أقول دعتناهم دول أقول دعتناهم انت هتعطي وكل رافي في المرأة في نوع المرأة ديجان كان ينقل على مساره شيف عاقل كان يسوي شريكها هذا العنقل أو ما أنت اللقية محمد عبد هذا العنقل واللقية شيف كشنال واللقية وإلهي مهدي إلى ما أنت على مساره دجال القرى إنه هو يسلم هدي له هاي كدوه هلكي أبيه هلكي أولوي أيام كانت شيء لا هاي نحن كقوا أسترو أنا بقول كلام كيسان تاجنا هدي له هاي كدوه وطورتين ونور طورني وشيف عاقل كيني وكي هبر يونس وكي كرحجس هدي أي نفضل السنة لا شقي وينه تيمبا وحويان مدح العطيل لفظ الصوت كان سيشري بايو وصور يا سكر وحلايا شيفو بركوري لهي حلكا كواسو إلهي أكون فضليو إلهي عدالة حكم وفتي وحكم كرسي بركاو عليه ورد مدحda marka la doorto ducada rub kala malaha wax qabad kala malaha iliya karaameelada qofkooda ducaynaysa adoo halaaraysa عاقلكنا waxa weeye jiif caaqilka way loo ducaynay ducada Allah waa aqbal عاقلك waa kala waa وحفظ دقن شيف عاقلك ودعينا إلهي سبحانه وتعالى هودي ويريح الكاس إلهي أقوى أسطره إلهي سبحانه وتعالى كدقه هاي سيرا وصف خلال تدكيس ونقول راعان إلهي أقوى أسطره سبحانه ودعينا مرة هوري وإن شاء الله يبنغي
سلطنة سوترينتا كان على عنقل مانتو محمد way shaqaynaysaa madax bay noqonaysaa haddaan lala shaqayna madaxnimo ma jirtee dadkun buu ka mid noqonaya markaa waxaan idin odhan lahaa cuqaasha isaga iyo waxaanu u nimi inaanu u ducayno oo aanu idinkala soo qayb galno si sharaf iyo milgabare xafladan caleemasaarka caaqilka oo annagu aanu hore ugu soo caleemasaaray runtii goobtii uu ka dhacay shirkii garxajis ee buurta gacan libaax jiif caaqilka maxamed jiif caaqil cabdiraxmaan jiif caaqil aadan marka hore waxaanu ku soo dhowaynaynaa bahda dhaqanka ayaanu ku soo dhowaynaynaa waxaanu leenahay adeer soo dhowow adigoo ka soo jeeda sabdanad ama maxaan ku dhahdaa caaqilnimo fac weyn oo muddo dheer soo jirtay oo sida soo xushay horta sidii horeba laydinku sheegay gacan libaax baanu ku aqbalnay annagoona lagu keenay waananu idinka aqbalnay waana idla qaadanay bahda dhaqankana waa ku soo dhowaynaynaa laakiin maxaa laydinka rabaa halkan waana badan iyo war badan baa laydinka yimi warkaasiin halkan in lagaga dhaqaaqa maaha ogaada isagana cadaalad horta marka hore ilaahay baa haya laakiin adiga waxaa la rabaa in aad hadalkana ugu dambayso waa jiifkan la hadlayaa inaad hadalkana ugu dambayso adigoo garanaya kelmadana aad tidhaahdo xaggee ka gooyi ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay jiif caaqilka la doortay waxaanu u mahad celiyey bulshada deegaankaas iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay munaasabadaasi si wanaagsan ilaahay ugu ballan qaadayaa inuu ilaahay la garab galo waxaana doonayaa dhammaan waa i ducayseen aamiinna waan leeyahay inaad mar walba i garab taagnaataan sidaasaan ilaahay ka rajaynayaa inaad i garab gashaan dhammaan cidda ka soo qayb gashay xafladan ana soo agaasintay waa cabdirasaaq qaasin jaamac telefishinka Sam News degmada Gooda Weyn oo ka tirsan gobolka Saaxil.